بسم الله الرحمن الرحيم waxaan halkan aad iyo aad ugu salaameynaa dhammaan dadka ka soo qayb galay afur wadareedka ee loo sameeyay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool magaalada Muqdisho qaasatan degmada Holwadaag hay'adda samafalka ee Alpha Trust oo marar badan u soo istaagtay ummadda Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay qabto sida qaaska ah waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii oo ka soo qayb galay afurkaani gudoomiyayaal iskuulkan waxa ku barta dad aan wax maqleenin iyo dad aan wax arkeenin ayaa ku barta labaduba caawa afur wadareedka way ka faa'iideysteen ardayda iskuulka waa 250 arday oo kulli dhagoola oo yar oo caruur ah macallimiinta waa 18 ilaa 20 wasaaradda waxbarashada ay soo siisay kuwaasoo bartay language laakiin iyaga aan dhagooleeyahayn oo shahaado jaamacadeed wada haysta maanta aad iyo aadan caawa ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan leh ee Alpha Trust ay noo sameysay maanta afurka ah ay ugu tala gashay dadka walaalahood ah oo aragga la oo dhagaha la ugu tala gashay waan u mahadcelinahay hay'adaasi 100% hay'adaasna waxaan leeyahay wixii kale oo naga sii dhiman inay insha Allah hore ay noogu sii wadaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo dadka naafada ah ee hadda aboowi iga horeeyay oo hadlaayay waxaan rabaa naafada ee dhowr meelood aniga naafada aadan u jeclahay aabaheeya gacan la'ay marka dhibaatooyinka ay leeyihiin waa fahmi karaa bismillaahir rahmaanir rahiim caawa waa habeen aad iyo aad weyn oo iskuulka maaragtay dadka aragga la iyo dadka maqalka la waxa aad iyo aad afur sharaf qiimo leh noo tahay maanta ardaydeena aad bay u faraxsan yihiin maadaama maaragtay iskuulkii lagu qabanayo mid kale waxaan leeyahay maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha arrimaha bulshada mar walba uu maaragtay in iskuuladan laga warhaayo yarta iskuulkan waxa ku nool oo wax ku barta qayb oo indhoolayaasha ah oo dadka araggala ah iyo qayb dhagoolayaasha ah oo dadka maqalkala ah dugsiga sare Holwadaagna waa ku yaala intaas oo uu ka kooban yahay laakiin wuxuu ku magac leeyahay waxaan maleynaa Albasiirna qayb waaye asaas aad maadaama ay tahay gabadhan ka socota hay'adda Alpha Trust hadda ayaa waxay afur wadareed u sameysay dadkaas oo culeysadaas ay xagooda ka jiraan aadan uga mahad celinaynaa warka inaan badinna ma rabno insha Allah taala bulshada ka soo qayb gashan oo mahad celinaynaa ayaga qaybtaan hadda hawshan noo qabatana oo xasan absuga iyo kamid yihiin aadan idinku mahad celinaynaa insha Allah taala wax kale oo ka badan inaad qabatiin oo rajaynaynaa insha Allah taala waxaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadkii oo ka soo qayb galay afurkaani waxaan hay'adda ku matalayso ee Alpha Trust ka imaatay jaaliyadda dalka Netherland ee Holland walaasheen aada Cali Cabdi oo ah samafale u taagan dhibaatooyinka haysata ummadda Soomaaliyeed waa dad laf dhabarta goowaad ee hay'adda iyo dadka gudoomiyaasha iyo madaxda qaybaha kala duwan ee iyada la shaqeeya iyo gudoomiye Daahir Cali Kulmiye oo asagana marna badan iska xilqaamay sidii ummadda Soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qaba waxa ugu qabata guddigana iyo dhamaantood waxa mahadnaq iyo sharaf noo wada ah intii halkan aad ka aragteen caawa ay gaarsiisay Alpha Trust walaasheen aan iyadana laba eray ka dhihi doonto sida samafalka u qabto soo dhawaado marka waxaan u mahad celinayaa caawa dhammaan inta ka soo qayb gashay masaaki ay ku fadhiyaan waxaan leeyahay anigu waxaan ahay ururka Alpha Trust wax badan way qabteen ururka Alpha Trust haddana waan ku tali jirnaa hadduu Ilaahay idmo marka waxaan Ilaahay ka baryayaa wadankeena Ilaahay nabad noogu dhigo walaalaheena dibadda ku maqan waxaan soo aruuriyay ma aha waa hay'ad wax kale laga soo qaad Soomaali ka soo qaad Soomaali u dhiib marka waxaan rajaynaynaa mar walba diyaar aan nahay waa markii ugu horeysay ma aha ururka Alpha Trust wax ay qabato laakiin baahida way badan tahay laakiin insha Allah waa dadaaleenaa gacmo wada jir wax ku gooyaan marka anigu maanta waxaan ahay waan matalayaa dhammaan walaalaheena dibadda inta soo baxsatay aykan khayr ajri xasanaat Ilaahay ka siiyo waxaan aad ugu faraxsanahay caawa anoo matalaya gudoonka maamulka gobolka Banaadir in aan qayb idin kala ahaado afurkan ay sameysay gabadha walaasheena aada Cali Cabdi afurkaasna ay rabtay inaan anaga naftigeena wax ka ogaano dadkan walaalaheena ah oo dadka Allah subhanahu wa ta'ala aad ugu jecel yahay ugu quruxda badan aqli badan Ilaahay uu siiyay maskax badan Ilaahay uu siiyay maxaa yeelay qofka
aragga la maskaxdiisa memory ku jiro inta badan dadka si cilmiyeysan waxay u dhahaan dadka ugu fahamka fiican waaye maxaa yeelay hindhihii wax ku arkayeen ay inta badan culayska xajmiga ay ku qaadeen maadaama ay meesha ka baxsan yihiin fahamkooda aad ayuu u sareeyaa